السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkaad nagala socotaan waa Moshish Media fadlan subscribe adi wax kuma dhibeysa anagana waxaan ka helaynaa dhiirigelin waxa inoo maraysay Nuuridiin markii uu ka soo cararay boqorkii uuna ku soo dhuuntay qabuurihii waxa uu imaaday qabrigii aabihiis halkaas ayuu waxa uu ku akhriyay wardi iyo quraan aabihiis u akhriyay asaga oo u duceynayo kadib daalkii haystay wuxuu iska dhex seexday qabuurihii halkaasina waxa uu ku galay hurdo dheer oo bilaa caajis ah daalkii hayay iyo ordkii uu soo ordayay asaga oo meeshii jiifo ayaa jinni qabuurihii dhex wareegayo oo gabar aheyd ayaa la yaabtay qofka meeshan jiifo kuma aysan aqoon jirin qabuurahan dhexdooda insi seexanayo way ka tagtay ayadoo socoto ayay waxay la kulantay wiil jinni ah oo isagana ka imaaday magaalada Masar waxay dhahday qabuuraha dhexdooda waxaa jiifa wiil aad iyo aad u qurux badan weligeyna cid ka qurux badan aan arag soo baxaan ku soo tusee ee soo arag insigan dhex jiifa qabuuraha markii uu imaaday uu arkay quruxdiisii ayuu waxay tiraahday weliga ma aragtay wiilkan qof insi ah oo ka qurux badan wuxuu yiraahday ani hadda waxaan ka imaaday magaalada Masra waxaan ku arkay gabar aad iyo aad u qurux badan waxaana dhalay wasiirkii Shamsuddin wiilkan adeerkiis ayaa dhalay waana isku da oo xilliga da'da way siman yihiin markaas ay waxay weydiisay oo aaway intay joogtaa Masar ayay joogtaa ayuu ugu jawaabay wiilka boqorka ayaa loo soo doonay in uu guursado gabadhaasi laakiin boqorkii uu Shamsuddin waa uu diiday oo waxa uu ku yiraahday gabadhan waxa siiyay walaalkay Nuuridiin ayaan si wiilkiisa in uu lagu daro wiilkiisana hadda Nuuridiin waxaan maqlay in uu joogo Masar maadaama uu guursaday gabadhii wasiirka ee u dhashay wiil la yiraahdo Badruddin wiilkaas ayaan doonayaa in aan gabadhi ku daro boqorkii arintii ayuu ka xanaaqay yiraahday waxa uu yiraahday haddii aad gabadha ii diido waxa ku qasbaya in ay guursato ninka damiinka ah ee foolxumada badan ee goobada leh in aan ku daro jinnigii ayaa waxay tiraahday oo muxuu sameeyay Shamsuddin jinnigii ninka ahna waxa uu yiraahday muxuu sameyn karaa waa laga awood badan yahay gabadhiisana caawa ayaa la guurinayaa gabadhii ayaa waxay tiraahday oo haddii aan kan qaadno oon caawino oo meesha geyno oon ku darno gabadhaasi ka waran waxa uu ku yiraahday waa arrin hagaaga waan sameyn karnaa waana yeeli karnaa kadibna waxay ku heshiin inay habeennimo qaadaan Badruddin asiga oo meeshii jiifo ayay xambaareen waxayna geeyeen magaalada Masar ayay ka tuureen waxayna ka soo kiciyeen hurdadii markuu soo kacay ayuu aad iyo aad ula yaabay meesha uu jiifo qabuuruu dhex jiifay haddana wuxuu jiifaa magaalo waxay dhaheen hurdada ka kac meesha aad ku sugan tahay waa magaalada Masar waxaad joogtaa qasrigii adeerka waxaan doonaynaa in aan raacdid oo guriga adeerka aan tagno gabadhiisa oo nin lagu dari rabana aan ku siino ood guursatid wuxuu yiraahday aniga kuma aanan soo tashan guur wax lacagana ma hayso sideen u guursanayaa waxa ay yiraahdeen hadalkaaga badani waxa uu naga beer dareynayaa waqtina ma haysano inta uusan nikaaxa dhicin waxaan doonaynaa in aan arrintan soo kala tuurno Badruddin arrintii waa uu ka yeelay oo sidii ayay isku raaceen waxay u galeen Shamsuddin oo gurigiisa joogo aad iyo aadna u murugaysan waxay dhaheen midkani waa walaalka wiilkiisii ee Badruddin ibnu Nuuridiin waxaan doonaynaa gabadhaada in aad asaga ku dartid ood u meherisid inta uusan meherkaas kale dhicin Shamsuddin waxa uu yiraahday sidee baan ka yeelaynaa arrinta boqorka ileen boqorkii uu nalaynayaa waxay ku yiraahdeen adigu arrinkaasi ka seexo ma ogoshahay wiilkaani inaad ku dartid gabadhaada waxa uu yiraahday wax badan ayaan tamaninayay wiilka walaalkay in aan gabadhayda ku daro haddii aan helana waan ku darayaa waa uu wareystay waa uu weydiiyey sidii ay meesha ku tageen asagana wuxuu u sheekeeyey
arrintii walaalkiis iyo waxii uu ahaa iyo sidii uu ku dhashay. Kadibna waxa uu ku daray gabadhii ayuu u meheriyey. Kadib waxaa dhacday labadii jinni ninkii koobada lahaa ee foolxumada badnaa ayay ka qaadeen xambaareen waxayna geeyeen meel aad iyo aad u fog oo magaalada ka fog. Waxay dhaheen halkan ayaad joogaysaa, haddii aad isku daydid in aad qasrigii boqorka usoo noqotidna waan kaa taklusanaa. Haddii uu soo noqdana oo qasriga soo aadana maalmooyin iyo bilooyin ayuu u soo looynayaa. Kadib habeenkii ayuu la aqal galay Badruddiin gabadhii in adeertiis ahayd ee aad iyo aadka u quruxda badneed. Ayadoo oo ay sidaas tahay ayaa boqorkii ogaaday in tuurlihii uusan guursan gabadhii ee Shamsuddiin oo ku darsaday wiilka oo adeerka u ahaa. Aad iyo aad ayuu u xanaaqay boqorkii, ciidamadiisii ayuu u wacay, waxa uuna faray in ay Badruddiin soo qabtaan, xabsigana uu ku tuuro. Kadib labadii jinni oo ayagana qasriga dhex joogay oo waxa shaqada meesha ka socdo dhegeysanayay ayaa soo baxay. Waxay yidhaahdeen maxaan samaynaa? oo ninkani Badruddiin inuu xiro rabaa, ma ku celinaa magaaladiisii Basra? Jinnigii ayaa wuxuu yidhaahday haddii aan qaadno oo Basra geyno, boqorkii kale ayaa u cilqabo, kaas ayaa dilayo, ee maxaa samaynaa? tii jinnigeed ayaa waxay tiraahday haddii ay sidaas tahay waan qaadaynaa waxaana geeynaa Shaam. Badruddiin oo iska jiifo xaaskiisa iska ag jiifo ayay soo qaadeen, waxayna geeyeen albaabada laga galo Dimashq, albaab ka mid ah ayay geeyeen. Badruddiin markii uu subaxdii soo kacay waxa uu jiifaa albaab aad u weyn, magaalo aad iyo aad u qurux badan ayuu hor jiifaa. waa uu yaabay, waxa uu yidhaahday xalay waxaa seexatay shalay galab qabrigii aabbaha meel u dhow, xalayna waxaad ku soo toostay adoo jooga Masar, halkaas ayaadna xalay ku aroostay, caaw saakina halkan ayaa ka soo kacday. wuxuu ma riyaa? waxa uu yidhaahday haddii ay riyo tahay sidee baan halkan ku imaaday? aad iyo aad ayuu u fakeray, wax uu sameeyo ayuu kasi waayey. waxa uu yidhaahday arrintani horta waa xaqiiqo oo riyo ma ahan, haddii riyo tahay sideen halkan ku imid? isaga oo aad iyo aad u yaaban waa wax uu sameeyey kasila, maskaxdiisana ay waxba dareemi la'dahay, ayuu qof waxa uu weydiiyey walaalow magaaladani magaceed? ninkii uu weydiiyey su-aasha ayaa waxa ugu jawaabay magaaladani sidee baad ku timid haddii aadan garanaynin magaceedii? wuxuu yidhaahday wallaahi amba qaabkan ku imaaday ma rumaysan karo. aniga shalay waxaan seexday magaalada Basra, xalayna waxaan ku aqalgalay dalka Masar, saakayna aniga oo meeshan jiifo ayaan soo kacay. dadkiina waxay yidhaahdeen haa waan ku cudur daaraynaa, ileen qof waalan ayaa tahay. waxa uu yidhaahday wallaahi anigu ma waalni, waan fiyoobahay, waxaan idiin sheegayana waa xaqiiqo. oo weliba ani xalay waxaan ku aqalgalay ku aroosay magaalada Masar, gabadhii uu dhalay adeerkay Shamsuddiin ee wasiirka ahaa ayaa kula aqalgalay xalay. way aad iyo aad ay u sii qosleen ayagoo dhahayo waxaa tahay nin waalan, waana xaqiiqsadnay. kadib ciyaalkii ayaa ku kacay ayagoo sidii nin waalan ula dhaqmayo, marna ka daba orinayo, marna ku qaylinayo. isaga oo ka cararayo dhibka ciyaalka ku hayaan ayuu waxaa ku soo baxay nin foorno u furan tahay oo rooti iyo buskudka iyo xalwada sameeyo. ninkii ayuuna u galay. ninkii ayay sheekaysteen, dhibkiisa dhan ayuu u sheekeeyey, sidaas ayuu u sheekeeyey oo u tagay Masar, gabadha kula aqalgalay, meeshaana la keenay. ninkii ayaa yidhahdeen sheekadaada waa sheeko cajiib ah, dadkana kaama ay rumaysanayaan, cidna akhbaartaada iyo sheekadaada ha uga sheekeenin, inta iska joog intuu ilaahay faraj furayo. kadib ninkii ayuu wuxuu kala shaqayn jiray foornada, rootiga iyo xalwada iyo buskudka, habeenkiina gurigiisii ayuu seexan jiray. saas ayuu magaaladii Dimashq uga shaqo bilaabay. dhinaca kale ee Shamsuddiin
iyo gabadhiisii quruxda badneed. Subaxdii markii gabadhii ay soo kacday, hurdaday ka soo kacday, waxa ay aragtay firaashkii uusan jiifin Badruddin. Kadib way soo baxday, aabbaheed iyo hooyadeed ayay u sheegtay in uu maqan yahay ninkii ahaa Nuurudiin. Odaygii aad iyo aad ayuu ula yaabay, meelaha laga fiiriyay ayuu yidhaahday, dhinac kasta haddii laga fiiriyeyna waa laga waayey. Islaantii ayaa waxay tiraahday, wuxuu amuusan wiilkii walaalkaa uusan ahayn oo wax kala ahaa. Asagana waxa uu yidhaahday, waa wiilkii walaalkay, asaga ayuu u ekaa. Gabadhii ayaa waxa ay tiraahday, alaabtiisii ayuu aabba ka tegay, cimaamadiisii, bal intaasoon akhbaar ka helnaa. Alaabtii ayuu soo qaaday, soo bixiyeen. Kadibna waxa ay ka heleen waraaqdii uu qoray walaalkiis Nuurudiin. Waxa uu yidhaahday, fartaan waa fartii walaalkay, tiimbarahana tiimbarihiisii waaye. Qaabkii uu ku baxay magaalada Masar markuu tegay, habeenkii oo aqal galay, waxayba noqotayba isku habeen inay aqal galeen. Iyo waxa dhan ayuu ka helay. Kadibna wuu xaqiiqsaday in ay tahay arrinta sax. Ciidankii ayaa waxay soo gaareen gurigii Shamsudiin oo boqorka soo diray. Waxay yidhaahdeen, aaway Badruddin. Waxa uu yidhaahday, qasriga ka raadiya, annagaba saakay markaan soo kacanay waan weynay, meel aan u doonno ayaa ka weynay. Kadibna boqorkii ayay arrintii u sheegeen inuu ninkii fakaday. Aad iyo aad ayuu u xanaaqay boqorkii. Waxa uu damcay wasiirka inuu xilka ka qaado ama meelo kale u magacaabo. Kadib wasiirkiina waxa uu sheekeeyey arrinta saxda ah iyo sidii ay wax kasta u dhaceen. Boqorkii markii uu sheekadii dhageystay, aad iyo aad ayuu ula tacajabay, waa uuna iska cafiyey. Shamsudiin laakiin wiilkii walaalkiis waa uu raadiyey, meel uu ku sheegana wuu kaasi waayey. Maalmooyin ayaa ka soo wareegay, bilooyin ayaa ka soo wareegay. 9 bilood markii ka soo wareegtay ayaa gabadhii waxa ay umushay wiil ay umushay. Kadib wiilkii waa uu koray. Muddo 7 sano ah ayaa ka soo wareegtay arrintii. Wiilkii oo dhallinyarada xaafadda la ciyaarayay, carruurta xaafadda ayaa isagu ciyaarayeen. Waxay yidhaahdeen, qof kasta ha abtirsado. Mid ayaa bilaabay, si ugu wada socotay. Wiilkii ayuu ku imaaday, aabbaha magaciisa ayay dhaheen. Asaguna waxa uu yidhaahday, aabbahii waa Shamsudiin. Waxay yidhaahdeen, aabbaha waa awow, Shamsudiin waa awowga ee aabbaha maahan, hooyada ayuu dhalay, iyo adiga aabbaha sheeg magaciisa, xagoon jooga. Nin aan aabbihiis aqoonin, anugu maxaan oran karnaa? Waxaan leenahay wax kala weeye, lamana ciyaari karno. Wiilkii asagoo oynayo ayuu hooyadiis u imaaday. Waxa uu yidhaahday, hooyani ciyaalkii way caynayaan, aabbaha lama yaqaanay ayay leeyihiin, waxyaabo badan ay ugu sheegayaan. Hooyadiina waxay tiraahdaa, aabbaha waxaa la yidhaahdaa Badruddin ayaa la yidhaahdaa, oo aabbaha ayaa adeer u ah aabbihiis, waxaana dhalay ninkii adeerkaa Nuurudiin. Wiilka ayaa yidhaahday, waayahay maalintaad dhashay ilaa hadda aniga aabbahay ma arag, maxaan u arki weynay? Intaasna Shamsudiin waa uu maqlayay wiilku awowga u yahay iyo gabadhiisa muranka dhex maraysa. Aad iyo aad ayuu uga murugooday. Waxa uuna go'aansaday in uu raadiyo, asagoo boqorka fasax ka helay. Fasaxaas uu ku raadinayo wiilkii oo adeerka u ahaa. Waxa uu ambabaxay magaaladii Basra, meeshii oo asal ka imaaday wiilkii. Kadib hortiisii ayuu rartay shaqaalihiisii iyo addoomankiisii. Magaaladii Basra ayay aadeen. In muddo ah si u sii socdeen, waxay ku imaadeen magaalada Dimashq. Magaalada Dimashq ayay dhex degeen. Kadibna shaqaalihii ayuu waxa u dirsaday in ay magaalada raashin uga soo gadaan. Laakiin shaqaalihii waxaa raacay wiilkii yaraa ayaa raacay. Si u socdeen waxa ay ku tageen foornadii uu ka shaqaynayay ninkii la oranayay Badruddin. Badruddin markuu arkay wiilkan uusan magaalada ku arki jirin ee quruxda badan ee asagaba aan laga aqoonin, aad iyo aad ayuu la tacajabay. Sheekadeedii ayuu sii galay oo wareysay. Waxa uuna ogaaday in ay magaalada Masar ka imaadeen. Markii ay adeegii ka kateen ay baxeen, ayuu daba kacay asoo daba socdo. Kadib waxay ku imaadeen meel teendho ah. Teendhadii markay galeen
ayaa waxa uu weydiiyey teendhadii ninkii joogay. Waxa uu yidhaahday, meeshaan yaa degan? teendhadan waxaa degan ay yidhaahdeen, Shamsudiin ayaa degan, wasiirkii Masar. Waxa uu yidhaahday, ma u geli karaa idan ma iisoo weydiin kartaa? ninkii shaqaalihiina waxa uu yidhaahday, maxaan ku dhahaa, yaa jooga ayaan idhaahdaa. Kadib waxa uu yidhaahday, waxaad ku dhahdaa wiilkii walaalka ee Badrudiin ayaa joogo. ninkii waardiyihii aad iyo aad ayuu u farxay. Adiga ayaan ku raadinaynay, magaalada Basra ayaan u soconay si adiga lagu soo helo. Kadibna ciddii ayuu u sheegay. waxaa soo orday Shamsudiin, xaaskiisii, gabadhii iyo wiilkii yaraa. meeshii ayay cid isku heleen, hab isu siiyeen. wiilkii yaraa ayaa soo booday. wallaahi anay aabbo markii foornadii aan imaaday oon ku arkay, nafsadayda waxay ii sheegtay in aad adiguba tahay aabbahey. laakiin waxaan ka bilaabo iyo meelaan ka bilaabo ma aanan aqoonin. waxaan dhahna ma aqoonin. waa ilaahay farxaddiisa in aan maanta shaqaalaha soo raaco oo foornadaada aan soo galo. sidaas ayay nuurudiin iyo wiilkiisii iyo adeerkiisba isku heleen. halkaas ayaan qisadeennii ku soo ganaanudaynaa. wabillaahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. sida aad qisadii ula socoteenna aad iyo aad ayaa idinkaga mahad celinaynaa. in badan waa mahadsantihiin.